فبراير تابري لاتن لبدا كل يشان لاتن كا ومالين سنين لبدا كل شيء توه لبدا كل شيء توكا waxa madaxweyne Axmed Maxamuud Siinaye uu ku sugay yahay safar uu ku soo gaaray magaalada Berbera gobolka Saaxil aniga oo korneer caadiya constituency Sheekh iyo degmooyinka Sheekh iyo Berbera ku marayay oo inta goluhu fasaxa waxa aan jecelahay inaan si dulmada u maro xaaladda waddanku maanta ku sugan yahay warbaahinta waxaa ka maqlayseen furista terminaalka iyo mashaariic oo xarig ka jiray madaxweyne Axmed Maxamuud Siinaye waxaa si soo ibaxay ajadayaal qarsoon oo gilgilay dareenka shacbiga ku dhaqan magaalada Berbera kuwaas iyo kuwo lamida ayaan jecelahay inaan wax ka taataabto waxaynu ogsoonahay dalkan wuxuu ku dhisan yahay nidaam ku dhisan waxa weeye sida waaxooda Soomaaliya jira awoodooduna ay awoodda dastuurka Soomaaliya mid walba ay gaar u tahay waa sharci dejinta fulinta iyo garsoorka saddexdan waaxood ku dheeraan maayo in badan waxay meel isugu tagtay inay jeeb kaliya ku wada dhacaan waynu ogsoonahay qaraarradii laga gaaray jiridda hubaal in sharciyadeedii loo soo celiyo iyo dagaalkii badan lagula jiray warbaahinta madaxa bannaan in fariin lagu eriyey garsoorka noocaasa waxa weeye guddiga cadaaladda mudday baadhaa maaha wax ciyaar lagu eri karo garsoore u talinaya si cadaalada kombalida waxaa kollaaskaroobay oo aan maanta jirin hay-adihii sharci dejinta fulinta iyo maxaanku ilaahaa iyo garsoorka oo isugu tegay jeeb keliya markay intaasi dhacdo waxaa dhacday xilligii Maxamed Siyaad Barre ee ay jirtay maxkamaddii badbaadada ee xukumi jiray ninkii la oran jiray Geelle waxaa la qabqabtay nimankii la kala oran jiray Janaal Maxamed Caynaashe Salaad Qubayle iyo maxaanku ilaahaa Cabdiqaadir Dheer maxkamadda markii la taagayey waxaa ka ahaa lawyer ninka la yiraahdo Allah u naxariisto Michael Maryama su'aalihii uu weydiiyey garsoorihii markaa daadiinayay kiiska ama dacwadda waxa uu ku yidhi yaa dejiya sharciga wuxuu yidhi golaha sare ee kacaanka yaa looga ambil qaata wuxuu ku jawaabay golaha sare ee kacaanka wuxuu yidhi yaa fuliya wuxuu yidhi golaha sare ee kacaanka ayaa fuliya Roble wuxuu ku jawaabay kaa laguma tilmaami karo sharci waxaa loogu jawaabay Roble out of the court ka bax maxkamadda maanta waxaa ka dhigan golihii sharci dejinta golayaasha sharci dejintu kama dhacaan Michaelkii laga saaray xafiiska laga saaray ama ha noqoto gabid hawshooda ama ha noqoto culays ay executive-ka ku hayaan ama fulintu oo isugu tagay meel sidaa daraaddeed horta sabab loo sii jeclaysto muddo kordhin meesha ma taho nin walba kursigiisaa dagaalay waayo mar haddaan protection sii karaynin doorkii uu ku lahaa bulshadii soo dooratay waa ayaan darro weyn in maanta meel lagu sii eego ma jirto maxay ka qabaan international community-gu maanta Somaliland oo doorashada ay xilligeedii ku qabsoomi weydo Ethiopia wasiir dowlaha arrimaha dibadda Ethiopia waa noogmi inuu ku dhawaaqay cilaaqaadka inuu ka dayliyey cilaaqaadka maxaan ku dhahaa Ethiopia ay la sii yeelan karto jamhuuriyadda Somaliland ay la sii yeelan karto haddii doorashadu xilligeedii qabsoomi weydo 2009 waxaa dhacday muran dhex maray mucaaradkii markaas Siinaye hogaaminayay iyo Faysal Cali Waraabe iyo dhexdhexaadintii ay Ethiopia ku samaysay maxaan ku lahaa dowladdii udub ee hogaaminayay Daahir Kay marxaladan oo kale markay soo gaadhay 2005 oo markaa la sheegayay muddo kordhintan teeda lagu murmayay waxa ay taxraaceen oo sheegeen 2005 maxkamadda sare ee Soomaaliland ay go'aan soo saartay in doorashada golaha wakiiladu ay noqonaysay tii ugu dambeysay
maxaan ku dhahaa diiwaangelin la-aan lagu geliyay waxaa ka dambeysay markaa taa iyadu marinkeedii banaanaaday markii golaha deegaanka oo sida lagu soo baxay ilka cabir ahayd aan la odhan karin waa doorasho xor oo xalaala aan la odhan karin siday u wiiqday dareenka bulshada reer Soomaaliya tahriibta la laabatay inteeda badan niyadjabka ku dhacay dhalinyarada meeluu kaga yimid waxaan leeyahay maanta ma xukuumad loo sii kordhin karo iyo golayaal loo sii kordhin kara sinaba ma jirto rajaxay difaacayay in gole bedelo lix qodob ayaa international community u cuskaday xukuumaddii daahiriyada ka ahayd in ay ku kalsoonaato serverka cabashada ka muujiyey si looga baxo in xaaladdu uu galo maxaan ku dhahaa in dalku galo xaalad siyaasadeed muruga maanta kalsoonidu way ka sii dartay waxay maraysaa meel sharcigii meesha ka baxay oo ay hortaa bannaan ay wax waliba u socdaan lama qiyaasi karo lama malayn karo lama saadaalin karo wuxuu dalkani ku dambayn karo haddii xukuumadda maanta xukunka haysa ay maxaan ku dhahaa iyo golayaasha jira ay sii doonaan muddo kordhin ka mid baan ahay qaladaadka jira waxa weeye inaad galow ka muujiso ayaa habboon sidaa daraaddeed waxa weeye guddoomiyaha ciro arrinku ku dhawaaqay muu ahayn mid uu isagu iska leeyahay wuxuu soo gudbiyey aragtida ay qabaan urur goboleedka igad ay Itoobiya ka mid tahay waynu ogna xuduudkii Jabuuti inuu xiran yahay maanta iyo Somaliland u dhexeeyay sababa amni awoodeed sidaa daraaddeed international community wuu tixgelinayaa aragtida ay qabaan maxaan ku dhahaa urur goboleedka igad waayo waa waddamadaynu jaarka ahay xilligan siyaasadda arrimaha dowladdu in dhaweydba hoos bay sii dhacaysa arrin dhaqaalo oo maxaan ku dhahaa UN-ka lala boobayey dowladda federaalka Itoobiya isku weelay wax laynoogu rido ayaa ay u badnay arrinta hadii jeer la eegayey ay sii qadiyadda Somaliland aan marnaba loo jeesan hoos bay u dhacday waxaynu ka warhaynaa Shanti House 1 Shanti House 2 Istanbul 1 and 2 Ankara Dubai oo tii ahayd sidaa Emirates-ku waa rikoodhkii ugu horreeyay inoo gala inaynu ku miranno mowqif aan qadiyadda Somaliland aan hore looga baran Axmed Maxamuud Siinaay horseed buu ka ahaa inuu waxyaabaha international goobjoogayaashu ay ka yihiin inuu lagu sawiro heshiisyo aan ku fadhiin sharciga Somaliland meel kaga soo aroorin qodobka 53 ee dastuurka Somaliland waxa uu sheegayaa heshiis kasta oo caalami ah oo ama siyaasadeed ama dhaqaale ama mashaariic ama maalgashi golaha wakiilada la'aantii inaanu soo mari karin inaanu keeni karin ma ammaanayo dowladdii ka horreysayna keentay iyaduna waa la mid intaasoo heshiisoo qarsoodiya baa dhacay midnaba ummadda reer Somaliland wax sharci ah oo aan maanta u sheegayno inaanu kaga wakiilahayn oo nala soo mariyey كومبليت مشروع أريد مالقشة أو أريد دليل أضواء أو نقول مي مقالمة البلبلة أساك لكل مي ما هدي شرع قاسي الآن وصومرين دليليسي ومدرية منافع ومدى أولى هي أنا لإيجي هراء ألقوا حوم مرتين شدي ليل صومي مرين نحكوا هذا الطريق شرعي صومي مرين waxay ay ku dadaaleen oo ku amaanaya deegaanka xubnaha deegaanka degmada Berbera iyagoo isticmaalaya qodobada 8 9 10 iyo xeer maxaan ku raadsadaa 3 ismaamulka gobolada degmooyinka intii itaalkooda si sharci ah u difaacay ma indhicin in waxyaabaha la tirkeliyo golaha ka sareeyana taamid leegba ayaa haysata oo ma socon karo waayo waa noloshii ummadda mana aragno lama qiimayn hantidii ummaddu ay lahayd asadkii meeshiisii lama maxaan ku dhahaa ma cadda wixii ay 170 shirkadu ku yeelanaysa ma cadda lacagta 600 kun ee miisaaniyadda loogu daray kaabinta leydka Berbera cidda la baxaysa
marka mataasaa lagu maalgelinaysa waa mid kale waa tusaale u soo qaadanaya kuma sii adkeynaya waxaa maanta ka dhigan wareejinta dekadu waxay khilaafsan tahay qodobka 53 dadweynaha reer berbera ee dareenkoodu ka kacay ayaa saxaya waxaa hogaaminaya waxa lagula wareegi karaa ama lagu maalgelin karaa dariiq waa fursad soorka iyo sharciga Soomaaliland mar haddaanu ka ahayn ama aniga hano ama madaxweyne hano ama gudoomiye baarlamaan hano ama cid kale wasiir hano waa dad caadi oo la iska celinaya mar haddii aan sharciga ku fuliyo waxay fulinayaan dadweynuhu xaq buu leeyahay taageeraan u muujinaya dareenkii sax ah bay ku taagan yihiin laakiin waxaan u saxayaa alfaada ay ku hadlayaan ayaa ah inay sharciga ku ballaato mar haddii aanay sharci ku fuliyin waxaan qabaa waa arrin meel ka dhaca gabbood fala oo ummaddu asadka ay leedahay in aan la aqbali karin dastuurkan ay u codaysay ilmaadeernimo iskuma keenayso xididnimo iskuma keenayso arrin kaloo qaliil iskuma keenayo waxaa isku keenaya waa dastuurka halbeeg keliya ayaan isku raacsana waa haddii kaa laga baydho waxa weeye arrin kale oo soconaya ma jiro aamuslaanta loo dhagooleeyey shacbi iyo sharciga laga dhagooleynaya wuxuu keenayaa hadaamad dalku maanta wuxuu galay marxalad loo baahan yahay in shacbigu intuu ka kaco badbaado la galo midnimo uu kaga baxo oo aan loo kala bixin sifaha qabiilka ee lagu siyaadiyey ee lagu bedelay sharcigooda kale u lahaa waynu ogsoonnay xasilooni darrada ku sii baahaysa dalka maxaanku idhahaa meesha la yidhaaho awdal gobolka awdal oo maanta laga dhigtay taargad furineed marka meel kibriidka lagu qabtaba 100 mashruuc oo qaylo sharci ah ayaa la hoos gelinaya intaa dabkaasi baxaya dabkaa leegaya la dareeno kale ku hoostusiyo ajadayaal kale oo qarsoon ayaa soconaya maanta waxa weeye terminaalka berbera ayuu ahaa safarka madaxweyne axmed maxamed siilaayo laakiin ajada u qarsoonaa waxay ahayd ee ugu weynaa sidii ay dekaduna u qaadi lahayd dhabii leyrku uu ka baxay kii siinay mar lahayd waxaan maanta leeyahay muddada yar ee xilka iga hadlay waxaan adeegaya doorashaa soo dhow dadku waxay aaminsan yihiin aan doorasha dhacayna kordhiyo dhacayso waar ma dhacayso ana idiin sheegay international community-guna ma ogolaanayo deeq bixiyayaashuna ma ogolaanayo dadweynaha reer somalilandna sabab loogu sii xadanteeyaa ma taalo waa marka intaa laga saaro bilyada hadday u baahdaan komishanka inay u baahdaan dhammaystirka shaqadooda ama farsamadooda ay saamaxdo war waxaan ahayn cidina ma aqbali karayso kuraasta beridu naga daashay ninka sii jeclaysanaya difaacaya waxa weeye golaa bedeli kara xukuumad sharciga madaxweynaha bedeli kara war waa dhab laakiin 6 qodob ee loo cuskaday daayriyaale meeshay yaal rabitaanka shacbigana ku jira rabitaanka iyo xasiloonida shucuubta geeska Afrika ayaa dalaynaya in ay doorashadani dhacdo waqtigeeda waxaan leeyahay xukuumadda muddadaas soo haray waxay wareejin kartaa iyo sifo sharci ah oo ay maanta waxaydan ku fadhiyaan midna ma jiro waa inay abuurtaa oo juhdiga saartaa halka ay laan xaalayso dhaqaalaha dalka intii hore ay ku filaato arrimaha noocani ma soconayaan waa xilligii la abuuri lahaa jawi doorasho waa xilligii la abuuri lahaa nabadgelyo buuxda oo dalkoo dhan ku baahda waxa weeye maalina ceerigaabo loo carari kari maayo maalina saaxil ka ilaaci mayso maalina boorama ka ilaaci mayso maalina saylac ka ilaaci mayso laakiin ay kartashiga dalkani waa mid halka waxaan uga baahinayaa dadweynaha reer somaliland haddii doorashadu xilligoodii ka qabsoomi weydo inaan ka mid ahay xubnaha u taagan kursiga u sarreeya ee maxaanku lahaa gaarsiinta haddii loo baahdo dowlad coalition ah in aan ka mid ahay dadka u taagan in tegada madaxweynenimada ee inay gaarsiiyaan doorasho xor oo xalaal ah
هذه وقت جدي كوكب سومي بلدك يفرينتها وحنقول يا شعب قريب سومانا بداية ذلك بكله أنا جو يسوقها إن ذلك يسوقها حلكاس إن كلام الله إن فكر بحنقولها كل ذلك إلى بديان ذلك إن هذه دور شو الحلقة ذيك قبسون ويدو كوليشن قبل ما تكون شو لوينه دولة ولا كذا كذا عند أوتر ترى سنة كم يتبان هذه اللي يقولون سنة ذنك يمين وهم لكن سواء ما أنت كنت رجل لي ولا رجل إن كم يلاقي ترتنك بالبلد ذلك دولة صار حسبي إن كم يلاقي درجات قبسومش أهمية السوى حسينين درجات الحلقة ذي عضو جبنا أنا وقت كذا فرينتها وحنا نسوق البنية ما أنت وفيش فيهم ولدت هاي أفر يلا أنا يا أحمد محمود سيرايرة أنا كوب وصورنا هاي مقالة مدح الساحل بربراء وحنا هي مدحوين ومثلا هو يكون دورته ما يقدمين يكون دورته هو قامي يقول كبدال يكون كيس نيكي يقول مدة الإعلام يكون كيس نيكي ميال كستو أي واحد كسي وقام هذا يكون كيس لكن ما أنت وأذكر الدراسات هو قامتي ومتى واحد شعرها دردرتي ومدرتي يا تكرر يصير لي قاعد يقول ما أنت لو مدوي كاسو جسدي واحد كرب حياة غضبك وعلى من لم يؤدبه والده يؤدبه الليل والنهار الماء والد كيسو كلام مستعين ويدبيه وقت قاعد فيه وقبل يقول أيام كرب حياة وتشيء نكلا إلهه نكلا إلهه محمد إلهه حديثه لقوي وعولي وحي يقول بس صدقوا حتى لو وحي بس يقع وحنا هنا يا دوح وقم مغلان حتى ما يشربون ويقم يواب كفورا أيام بالليل ونسي ولا أسرار لو وظيفة ودنوا ترى حالنا بسنو مسكويشة لو وظيفة استا مركوبي أقوم ويا وقت وجه على كرسي كان لقوري